bal u fiirso dumarka guryaha ku waaweynaada xitaa waxyaabahan idhaahdo waxa ka mid tahay bal dadka waxa ugu dabeecad xun labo waxa ugu dabeecad xun gabadh weynaatay iyo gabadh la soo furay ima gabadh surwaalka xidhata iyo gabadha diracshiidka xidhata ee diracshiidka kor u qaada fidnadeeda waxa daran baan soo kara gabadha diracshiidka xidhan ee diracshiidkana qayb kor u qaada ee wada xidhnayn gabadha surwaalka xidhan gabigayga waxay tahay wad aragtay ka dumarka soo qaadaysa leedahay waa inay inantu raali gelisaa ninkii maxaad dhankiisa uga hadli weyday yadnood oran weyday waa inay ninku de gabadha raali geliyaayo tixgeliyaayo mas'uuliyad badan iska saara ma dhanka raggaad u xaqlinaysaa wala soo ran karaa nimco waa su'aal wanaagsan anagu dood aanu ka rag ahaan aan qabno marka horeba gabadha anaga raali gelinaba idinku intaydaan waxba qaban ayaa anagu raali gelintii bilownay marka waxa loo raali gelinayaa gabadhii maalinta aad gabadh doonato ee guriga aabaheed aad tagtay ku tiraado waan ku ogolaaday ee aabaha iga soo doono ama aabaheedu ku raag gabadh baan ku siiyo guriga aabaheed baad tagaysa xaflad baad qabani meher baa loo qabani inantii meher baa loo meherkaad u baahan tahay sheego xaq baad u leedahay meherkaaga sheego yarad iyo waxaan gabaati baynu bixinaynaa ducooyin baa la bixiyaa ninkii kharashka intaa leeg waa raali gelin weyn aan ku raali gelinayo reerkayga iyo xaaskayga rag baa $10 ku bixiya aroosyo muxuu $10 ugu bixinaya xaaskiisu raali gelinaya haddana waxaynu odhanay guri baan gabadhii geystay guriga kiradiisa anaa bixinaya haddaan hantiila ahayna guriga anaa iskale oo ka hor intaanu guursan ma guri dhistayba si aan xaaska aan mustaqbalkayga aan u dejiyo gurigayga anaa dejisto madcamkayga cuntaday cunaysay anaa la weydiinaya dharka ay xidhanaysay anaa la weydiinaya billaah calayg waxaas oo raali gelina ma kan bixiyay gabadhii darafkayga inay tiraado maanta adiga raali geli raali gelinteedu waan qadintay gabadhu markay niqaamato ragga indhaha ila raacda niqaamkiina waliba niqaamkan kii sharciga ma haba kii diinta ogoleed kan indhaha furan ilaa inta gabadhu muuqato ama face mask kan bada imka face mask bixita xidhaanba iyada laftigu caqabad ku yahay waxaan iyaga haladay anu raggoon ma ahayn wuxuu iyada caqabad ugu yahay iyada damage ba ka soo gaaray markay inantu gurdoon tahay kan nimca ahaan imika marka lagu arko nimco ninkii ay ku qanacay arkay wuxuu nimca eegaya akhlaaqiyadkayga diiniyeed wajiga nimca way muuqdoon arkay oo ku qancay wax rafaad dhibaato iskama sii marin haday damac ninku gabadhu ma ku ninku gabadhu bilaana qaam tahay oo ninku arko wata loo leeyahay gabadhu rasuulka calaysna war wajiga gabadha iska eega marka haddii niqaamka aan iska ay gabadhu ay niqaamato indhahan qurux bay sameeyaan hadii jana dad nimca aragto xitaa rag hadii loo soo niqaamo inanu bad moodide oo adiga wax niqaamka meelaha marka indhihi gobol laga wada qurux baday sankii waa laga wada qurux baday gabadhii raguna hadii jeer bal u fiirsada waxa qarsoon way jeceliin ima gabadha surwaalka xidhata iyo gabadha diracshiidka xidhata ee diracshiidka kor u qaada fidnadeeda waxa daran baan soo kara gabadha diracshiidka xidhan ee diracshiidkana qayb kor u qaada ee wada xidhnayn gabadha surwaalka xidhan gabigayga waxay tahay wad aragtay wax kuma sii mashquulis laakiin ninka ma wax laga qariyo waa waxyaabaha ilaahay gabdhaha u xijaabta u yiri iyaga la ilaalinaya shaydaanku muxuu qoranayaa haday kor u qaadileed gabadha diracaday sii wadileed haday sii wadileed shahwaanigi markii qofkii shahwadiis uu ku mashquulsanaanaysa mar waliba laakiin gabadhu marka aragtida wajiga laga yimaado meelo badan oo kale ama xaalado badan oo kale lagu qiimeyn karaa jira targetka maxaad u saartay wajiga gabadha in la arko wajiga inantii markii inanbaysan bay kulmayaan quruxdeedii buu arkay indhaheega qurux badan buu arkay uu qiimeeyay uu khalkhalay wuxuu niyeystay waa su'aasha ku soo waday ka soo dhaxgashay wuxuu niyeysanay qurux ka duwan qurux zaa'ida wuxuu leeyahay inta ku dheego qurux badan talo markay niqaamka iska qaado sidee u si qurux badnaan doonto jawharad bisi noqonaysa uu leeyahay waaba ku sii nucnucsanaya cabidka inantii bay wada kulmayaan aan is aragno niqaamka markay sarkaan iska qaado inantii wajigu niyeystay kamay soo bixin meesha gabadhiina waxa leedahay ba ninkii ma ku cajabiyay way ka soo daba garaacaysa inaan baa ugu inta hotel meel casumad gabadhu casumay niqaam isku barteen oo ka helay casumay wallahi wuxuu ku leeyahay markay niqaamka iska qaad halkaas ay gooday hadda wuxuu ku leeyahay ma hooyatay bay ugu tiri guriga ma gaadhnaa gurigaan ma gaadhinayna hayne siiba kugu dhacday ninkii damage buu caawa seexanaya rag baa haasawaha joojiyay markii gabadhii uu muddo uu jeclayday wajigeega arkay uu ku qanci waayay muddo ka qaadatay
inuu haasaaway ka qanco inantii waswaas baa dumarka ku dhacay kalsooni darra haysata gabadh baa la guursanaya maada jeceshay maanta ku celinaysa naa walaal haddaan ku jeclay maxaan kaa guursanay iyagii waxay abuureen dumarkii kalsooni darra ku abuuran wajigooda kalsooni darra kaga abuuran nimankii guursadeen kalsooni darra kaga abuuran biilkooda iyo nolosha waddanka ku nool kalsooni darra waddankeena dad badan kuma noolaanayaan hablii meelo kale ay rabaan marka meel walba kalsooni darra hablii ka haysata marka habluhu kalsooni isku qabaan bal u fiirso dumarka guryaha ku waaweynaada xitaa waxyaabahan idhaahdo waxa ka mid tahay bal dadka waxa ugu dabeecad xun labo waxa ugu dabeecad xun gabadh weynaatay iyo gabadh la soo furay xitaa dabeecad wanaag ragga ni haya gabadha weynaatay cuqdad bay gelaysaa dabeecadii ba ka xumaanaysa xitaa haddad maxay asxaabtaada eegto gabadha da'nimo ku weynaatay isma u fahmi karaysaan gabadha la soo furayno waadiga arko dabeecadda ka xumaataba marka labada jiilba dabeecadoodu way xumaataa marka dabeecad wanaagii wuxuu ku jiraa inay gabadha hore u guursato wuxuu wanaagii ku jiraa inay gabadhii reer yeelato gabdhaha aan inta yiriin way dabeecad fiican markay reer leeyin way dabeecad fiican marka anagu waxyaabo badan oo buusashano hormoonadii wax badan ma ka qaybnay farxadeen marka muhiimadaada iyo aragtidaadu inta badan waxa weeyaan gabadhu inay guri gasho oo ilmo dhasho bas muhiimadda ugu badan waxa weeyaan inta gabadha markii nabi ilaahi aadam la abuuray ilaahay isaga wuxuu dhulkan khaliifo ka ahaw oo ka tali oo tareentiisa intiisa loo keenay xaawo ilaahay ma ku abuuray waxa loo abuuray litaskun saad ugu degtaan buu ilaahay dumarka abuuristooda koobaad waxa loo abuuray in ay hooyo noqoto gabadha asal waxa waa inay marwo tahay marka gabadha asalkeega waa marwanimayadu wallahi ragga ay dhibaatadu kaaga imanaysaana waa ragga muuqaalka uga eeg xitaa dumarka ninku hadduu muuqaal rag badan baad arkaysa qofku hadduu dumar la soo koro raganimadeed macnaheega ma fahmayo marka raggii jilicda sanaay oo dhan baad ayaad moodaa inay dumarka xaabo u yihiin oo meelaha kaa soo caacay kaa soo aflagaadeen marka kuwaasina way iska tegayaan faama zabadu fayadhab aljufa wama wixii xaqana uu haraya xaqa on baa haraya wixii baadilkana uu tagay